kusoo dhawaada channelka sooyaalka wada qodobada ugu waaweyn waxa ay kala yihiin wasiir Jannaan oo diyaarad military ku tagay balad xaawo Soomaaliya oo ku dhawaaqday xaalad degdeg ah anshaxa awgiisa fafaan dheeraad ayaa ku maqal doontaan dhanka qodobada dibadda ugu waaweyn waxa kamid ah madaxweynihii hore ee dalka Kenya oo geeriyooday taawadayaal haatan kusoo dhawaada warkii faahfaahsan wasiirka amniga maamulka Jubbaland Cabdirashiid Xasan Nuur Jannaan ayaa goordhow gaaray magaalada balad xaawo ee gobolka Gedo diyaarad military oo ay leedahay dawladda dalka Kenya ayaa lagu soo warramay inay saaki ka qaaday magaalada Nairobi ee xarunta dalkaasi oo ku sugnaa 40 cisho ee la soo dhaafay isaga oo ka degay garoonka gudaha degmada balad xaawo wasiir Jannaan ayaa si weyn loogu soo dhaweeyay halkaasi isla markaasna u soo banaan bixin shacabka iyo maamulka sidoo kale wararka ayaa intaas ku daraya in goordhow qaban doono shir jaraa'id isla markaana uu kaga warbixin doono xarigii lagu geystay magaalada Muqdisho safarka uu Jannaan haatan ku tagay gobolka Gedo ayaa ku soo aadaya iyadoo hay'adaha xuquuqda aadanaha ee Amnesty International ka dalbatay Kenya inay ku wareejiso dawladda dhexe si loo keeno cadaaladda 28 bishii hore ayaa booliska Soomaaliya waxay sheegeen in wasiir Cabdirashiid Jannaan uu ka baxsaday xabsiga kaas oo 31 bishii Agoosto 2019 laga qabtay garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho dawladda Soomaaliya ayaa ku dhawaaqday xaalad degdeg ah oo ku aadan anshaxa xilli cayayaankaas uu si baan u saameeyay deegaano ka tirsan bariga Afrika wasiirka beeraha iyo waraabka Soomaaliya Saciid Xuseen Saciid ayaa sheegay in anshaxa uu ka degay deegaano badan oo dalka ah uu ku yahay khatar wax soo saarka beeraha ee wadanka waxaa jira walaac ku aadan khatarta anshaxa aan la xakameyn doonin koor xilliga uu dalka soo gaayo oo ku aadan horanta bishan afraad qaramada midoobay ayaa sheegay in anshaxa uu yahay kii ugu badnaa ee ka dega Soomaaliya iyo Itoobiya 25 sano ee la soo dhaafay hay'adda cunnada iyo beeraha qaramada midoobay ee FAO ayaa sheegtay in anshaxa khatartii ugu badneed muddo 70 sano ah ku hayo dalka Soomaaliya dariska la ah Kenya Soomaaliya ayaa noqotay dalkii ugu horeeyay ee bariga Afrika ee ku dhawaaqa xaalad degdeg ah ee ku aadan anshaxa ku habsaday bariga Afrika ayaa la rumaysan yahay inuu ka soo kacay Yemen oo ku soo tallaabay badda Cas roobkii xoogganaa ee daayay dabayaaqadii sanadkii 2019 ayaa la rumaysan yahay inay saacideen faafidda anshaxa cayaankan ayaa la sheegay in maalintiiba uu jari karo masaafo dhan 150 kiiloomitir oo midkiiba cuni karo dalag dhan culayskiisa jireed madaxweynaha hore ee wadanka Kenya Dani Arab Moi ayaa maanta ku geeriyooday isbitaal ku yaala magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya halkaas oo muddooyinka ugu dambeeyay lagu baxnaanin madaxweyne Dani Arab Moi ayaa geeriyooday isagoo 90 sano jir ah waxa uu ahaa madaxweynihii ugu waqtiga dheer ee soo xukuuma dalkaasi kuna soo rogay sharci iyo siyaasad adag intii u dhaxaysay sanadii 1978 ilaa 2002 geerida madaxweyne Moi ayaa si weyn saaka looga dareemayay wadanka waxaana lagu dhawaaqay in calanka hoos loo dhigo maalmaha baroodiiqda la sameeyay madaxweynaha wadanka Kenya hadda talada hayo Uhuru Kenyatta ayaa sheegay geerida Moi inay tahay wax aad loogu murugoodo madaxweyne Dani Arab Moi ayaa dhashay 2 bishii Sebtembar ee sanadii 1924 waxa uu ka soo jeedaa qowmiyadda Kulanjinta ee degta galbeedka wadanka Kenya xilka madaxweyne ku xigeenka ayuu soo qabtay sanadii 1978 waxa Moi loo dhaariyay xilka madaxtinimada waxaana Kenya uu maamulayay tan iyo 2002 daawadayaal intaas ayaa nooga warkeena warkii xigeentan kulmi doono waxaan kaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo waaniga oo maslax nasiib